qashinkii magaalada qashinka ayuu qaadaya waxa halkan gaariga ku dhagan oo gaari dawladiisa qabsaday waa ra'iisul wasaarihii dalka dhan oo la waardiyen lahaa wuu soo dhuuntay wuxuu la shaqeynayaa qolooyinkii qashinka waxa la doortay ra'iisul wasaare Mr. Boris Bahor bishii November sanadkii 2008 ayaa waxa loo doortay ra'iisul wasaaraha dalka Slovenia ilaa hadda waa laga qaadi laayahay wuxuuna ku guuleystay ama dhibicii ugu dambeeyay ku qaaday 67% ra'iisul wasaarenimada dalka Slovenia oo caasimadoodu lagu magacaabo Ljubljana waa artaan waxay ku jiraan qaaradda Yurub waxay qaataan waa Yurada waa ra'iisul wasaarihii dalka waa aragtaan Mr. Boris Bahor wuxuu qaadayaa qashinka ajiib Soomaaliya ajiib siyaasiga Soomaaliyeed tan ma sameyn kara haddaan xaqiiqada ka hadalno waxa hubaal ah in la qarxin lahaa in la qaarijin lahaa in qashinka waxa lagu ridi lahaa bamba iyo qaraxyo iyo maxaliyada ama qafaab isku qarxin lahaaba hadda waa ra'iisul wasaarihii dalka dhan waxa qashinka goraya u jeedaan oo dalka Slovenia siyaasiga Soomaaliyeedna maanta dalkiisa qashinkan ka xaqaa waa la qarxin lahaa ama wala dil lahaa teeda kale wax waardiinaya malahan nin jeclaysi aragday ma aragtan waa ra'iisul wasaarihii waxa salaamaya shacabkii way u bogeen wuxuu leeyahay mudane ra'iisul wasaare Boris Bahor ma adiga wax maanta qashinkii maalin kasta naga qaada way yaaban yihiin ajiib qabyaalad male in jeclaysi malahan aqoon ayuu ku yimid dadkiisii shacabkiisii qarankiisii jecel wuxuu leeyahay macsalama idinka tagay waa sii shaqeysanaya bal ka warma madaxweynayaasha iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ama maamul goboleedyada haddii maanta madaxweyne ama loo doorto ra'iisul wasaare waxay sameeyaan lahayn ama sameeyaan bal lagu bartay waxay soo wadanayaan jeclaysi kii qabiilkiisa kii jufadiisa ilaa kii lafta hoose ama in adeerti ama in abtigiis waxaas waa ajiib Soomaaliya qabyaalada naga daaya waa mar kale iyo barnaamijkii baag waxaan idiin soo wadnaa muuqaalo kale oo ajiib ah ku saabsan dhacdooyinka caalamka ugu muhiimsan ama ugu khatarsan ku xirnaada barnaamijka baag ku beeri aqoontada guud waxaan idiin soo tarjumay عمر سيسي صومبان ومركلة إيا برنامجكي باك كبيري أقونتا دا قوت ما أنتو وحانو إدين هنا أرين عجيب أو كدعضي عالم قار أهان قارة يوروب madaxda caalamka ugu wanaagsan kuma imaan qabyaalad iyo nin jeclaysi ay waxay ku yimaadeen aqoontooda caawinta shacabkooda iyo jacaylka qarankooda halkan waxaad uga jeedaan waa ra'iisul wasaaraha dalka Austria waa ninka dhan ee xukuma wadanka Austria waxa lagu magacaabaa Christian Ken wuxuuna ka socdaa xisbiga SBO waad aragtaan wuxuu yimid maqaayado ay leeyihiin Turkida iyo Bosniyaanka wuxuuna ka dalbaday waa kuwana waa aragtaan waa Turkida iyo Bosniyaanki wuxuu yiri biitsada iyo sabaayada ay sameeysan isiya ana waxa u geenayaa shacabka marka idin soo wacaan idinka iibsaneen ma aragtaan Christian Ken wuxuu idin tusay biitsadii ama sabaayadii asaana gacantiisa wax ku sameynaya waad aragtaan oo Bosniyaan iyo Turki oo badan muslimiin waxay u dhiibeen ra'iisul wasaarihii dalka Austria wuxuu rabaa inuu shacab iska dhigo wuu qaaday biitsadii ayuu soo wadaa ajiib wuxuu taabtay guri wuxuu dadkii biitsada dalbaday ama cuntadii biitsada sabaayada oo taqaanin ayuu wuxuu leeyahay soo gali karaa guriga ugu geena cuntadii familku way yaaban yihiin soo dhawow hadda waa ra'iisul wasaarihii dalka Yurub qabyaalad ma taal adduunka qabyaalad ma taal Soomaaliya qabyaalad iska daaya xumaanta qabiilka iyo qabyaalada lagu dhaqmayo ayaa heerkan gaarsiisay bal arka ra'iisul wasaarihii soo dhaweeyeen wuxuu ka dalbaday inuu biitsadii la cuno inuu la baashaalo inuu dhibaatooyinka weydiiyo inuu macna carruurtiisa ugu faraxsan yihiin waxay la yaaban yihiin ra'iisul wasaarihii awoodda dalka xukumay ayaa maanta cunto guriga noogu keenay oo noo soo dhuuntay hadda wuxuu tagay Bosniyaankii iyo Turkida iibinaysay biitsada ee ka ganacsatay ee dalka sharciyada ku leeyahay wadanka Austria gaar ahaan caasimadda Vienna kadibna wuxuu yiri markii la waco ii sheega cuntada ana u geenaya bodyguard ma wato lama qarxinayo nin jeclaysi ma yaqaano qabyaalad meesha kama jirto aqoontiisa ayuu dalka ku qabsaday dadkii farxad waxay ku leeyeen Ken mudane ra'iisul wasaare ma adiga waxa oo noo keen cuntada wallahi waa ajiib waa wax adduunka dad badan ay la yaabeen barnaamijka baag ku xirnaada maanta waxaan idin haynaa qabyaalad inaysan waxba tareen waa kana ra'iisul wasaare Ken haddana guri kale u tagay pizza loo dhiibay kaamiradu way qarsoon tahay way u daaran tahay way shidan tahay wuxuu rabaa shacabkiisa wax ay jecel yihiin inuu ogaado laakiin dadka shacabka qosol wixii la soo dhawo mudane dadku way kala babateen wax dhici kara ma ah bodyguard ma wato tignika ma wato suuq iyo dhishiiki iyo ma wato iyo hoobiye BM ma wato wax uu wato male ma wato jufadiisa laftiisa ma wato qabiilkiisa dhan ma wato nin jeclaysi kuma imaan meesha dadkii wareysanay wuxuu leeyahay maxaa u baahan way ba qoslaayeen waa aragtaan u leeyahay waa ra'iisul wasaarihii dalka ajiib waa kana
رئيس وزراء كير ونن جيس ونن سوتي شعبك دلك أستراليا أرك wuxuu tagay afrikaankii waa nin madow aragtaan waa afrikaan dhalasho kule wadanka Australia wuxuu wareysanayaa qaabka uu nool yahay in la cunsuriyo in dhaqaalo inuu shaqeysto inuu maxaliyada ii sheeg la dhaqmay dadka Australianka wixii dhamaan waa kana ra'iisul wasaarihi ma aragtaan caruurtii ku faraxsan waa aragtaan nin madow meesha dhex muuqda cunto la cunaya wax kasto la baashalay marka Soomaaliya qabyaalad iska daaya bal fiiri heerka la gaaray ra'iisul wasaarihi dalka xukuumaya ayaa intuu staafka iyo ciidamadii militariga ka soo dhoontay ayuu shacab iska dhigay ayuu wuxuu biisu soo qaaday sabayadu soo qaaday wuxuu rabaa inuu shacabkiisa ogaado heerka ay halka ay ka taagan yihiin iyo sida ay ugu baahan yihiin balyaabkan iyo cajiibkan arka waxa lina adduunyo joogo maxaa aragti kugu laaban halkan waxa ku soo dhuuntay ku gambanaya waa wariyaasha ugu caansan dalka Holland waad aragtaan waa ra'iisul wasaarihii dalka Holland waa ninka lagu magacaabo Master Mark Rutte ayaa wuxuu xafiiskiisa kaga baxaa maalin kasta baaskiil wuxuuna ku tagaa ilaa gurigiisa ama gurigiisa ayuu kaga soo baxaa wuxuuna ku yimaadaa xafiiskiisa shaqada halkan aw jeedaan wariyaashii la iga hara maxaa ikiin daba dhigay marka waxa bursanay waa wariyaashii waxay rabaan in ummadii tusaan halkan waxay ku qarsadeen kaamirayaal ama video si u duubaan ama bulshada ugu soo bandhigaan arag ciidamadiisa militariga ma aragtan uu ka tagay ra'iisul wasaarihii dalka xukuumaya oo Holland ayaa wuxuu ka tagay ciidamadii iyo tiknikadii iyo taangiyadii magaalada dhexdeeda wuxuu baaskiil ku maraa wuxuu ku leeyahay maraw ilaalo إلا ماشي قبيلات متال إلا ماشي الإسلام قرحناي إلا ضد دين تكو قرابنا يمتشوجان إلا ضد ضد كلاها يمتشوجان ضد كقرا يمتشوجان نجعلاسي متشرو وهكذا وحقص لا أوجيدان ورئيس الوزراء دلك هولن ومستر مارك روtte wuxuu sheegay ama xilka Holland qabtay 14 October 2010 ilaa hadda waa laga qaadin laayay shacabkii uu codeynaya muslimiin badan soo baxeen uu ka guuleystaa uu ku shubtaa waxaan ku iri shacabkii uu dhaxgalay tiknikadii iska reebay hub marrabo Soomaaliya heerkaas ayuu adduunka taagan yahay horumarka aan ka shaqeyno qabyaalada aan joojino ra'iisul wasaarihi dalka xukuumaya ayaa baaskiil ku socda waa kaasaad waa aragtaan uu sii socdaa waa mar kale barnaamijkii back